السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سأل أصحابتا بالكسر جوكتان هالكني وشبكتنا عالم تكنولوجي. أصحابتا ما توحني هي عشر كوسابسن شورت كتك كمبيوتر إن لو استعماله موس دولكي سمر ربع وقت كل كمدر بس يسوع وحكفوض حب فوض وأنا استعماله شورت كتك وكيبورد استعماله هذا موس كنا كم مرة تبع marka cashirkeenaas ayaan guda geli doonaa. Shortcut-ka koowaad ee aan dhigan doonaa waxa weeye waa marka aad desktop joogto yaa doonayso inaad partitionskaaga ama hard disk-ga tagto inaad isku taabato Windows plus inaad isku taabato inoo waxa ku soo baxaysa hard disk-gaaga iyo bartada storage-ka wax ku kaydin jirtay iyo wax ku ridan jirtay ayaa toos ugu soo baxaysa. markaas waa shortcut-ka koowaad ee dhigan doono waa dad Windows 10 isticmaalayo hadda Windows 7 isticmaalayo labadaba ku soo baxaysa. shortcut-ka labaad waxa weeye marka aad doonayso inaad ka bedesho inaad soo xidho computer kale waxay isticmaalaysaa Windows plus L wana log bisgelinaya laakiin taama soo kordhay cashirkeena aniga go'ayadan soo in shortcut-ka saddexaad waxa weeye inaad taabato Windows qofka Windows 10 ugu jira sheegaya inaad taabato Windows plus X idna ay ku soo baxaan inta option ay ku soo baxaan inaad control panel-ka aado intaas kama si ka aado inaad command promote soo kacay system-dida weeyaan marna admin baa lagu soo kiciyaa marna iyadoo bilaadan la soo kiciyaa ma disk management waxyaabahaas inaad device manager-ka waxyaabahaas dhan baad ka heltaa halkan inaad rantii ka hesho inaad ka hesho waxyaabaha badan oo asxaabta waa iyadoo waa shortcut waana hab gaaban oo aad ku gaadhayso meeshii aad doonaysay. qofku control panel-ka marka uu doonayo inuu search ku qoro control panel qoro idna markiiba halka asxaabta ka dhow oo ka fudud. marka aad doonayso inaad ran kaligeed ku soo baxdo waad waxa doontaa ku qortid waxa isticmaalaysaa Windows plus R waadna waxaad ku qoraysaa waxaad ku qoraysaa asxaabta eetana bartaad shaqadeeda ku geeysaa barti kasta koorba ku qoraysaa meesha aad ku geeysaa asxaabta. taasna waa shortcut kii shanaad baa filaya ee aan dhigano. kan lixaad waxa weeye marka aad doonaysid inay ku soo baxaan daaqadaha ku running-ka oo dhan ay ku soo baxaan oo aad yaan taabanayso Windows plus tab taabanayso asxaabta idan maxay information iminka programka wax ku duubayo kantaasiyada labadiisa option ay midna laga baqtiyo midna waxa lagu duubayaa ishadaan qura idna waa ka soconaysa dad alta ku dartana waa tab ka soco ma taas hata waa kan wax weeye waa alta Windows iyo tab bas la qabay idna waa soconaysa magaca hata shortcut kastana waa shortcut-kii lixaad ee aad marka desktop-ka joogtid ku fududeynaya inaad computer gudihiisii aad ka soo qaadato. toddobaad ee inuu ku soo gabagabeyn doono cashirkeena waxa weeye inaad isticmaasho markaad project uu kugu jiro computer-kaaga aad si fudud uga dhigi karto project-gaaga aad uga dhigi karto inaad ku isticmaasho project-gaaga qura inaad project-ga ka sii deyso computer-ka iyo inaad project-ga iska baqtiiso oo computer-ka isoo hadana kugu jira aad inactive ka dhigto. marka waxaasna waxaad keenaysaa Windows plus B for Benway Windows plus B waa kan intana option baa isagana hoo banaan inaad PC screen only ka dhigto computer-ka qura inaad u deysisto inaad duplicate ka dhigto duplicate saxaabta weeye inaad project-gana u ogolaato inuu shidmo oo uu ka sii daayo computer-ka uu shidmo igastanda sana duplicate la macanta way soo dhawi tan wax weeye asxaabta second screen only waa project-ka qura project-ka qura way taasina waa option kale marka labaasna waa isku taa second-ka iyo PC screen only waa isku obasii labadana waa isku shaqo dhawi. intaas maxamed cashirka yar ee kooban ayaad ka faa'iideystay marmaraya asxaabta hadda asxaabta cashirkan ka heshay please asxaabta like star
commentiga wixii caqabad ee ku haysta nooga soo gudbi subscribe-tana dee ha ka iloobi asxaabta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.